dhammaantiin waxaan jecelnahay in afurkeenna uu noqdo mid wanaagsan oo isku dubaridan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba afurka wanaagsan waa mid caafimaad leh, nafaqo leh, isla markaana kaa caawinaya inaad si wanaagsan u bilowdo maalintaada. Wuxuu muhiim u yahay si loo xoojiyo caafimaadka jirkeenna inta lagu jiro soonka. Cuntooyinka aad dooran karto waxay saameyn ku yeelan karaan awooddaada inaad si caafimaad leh u soonto. Cuntooyinka soo socda waxay kaa caawin karaan inaad ka faa'iidaysto afurkaaga adigoo si buuxda ugu dooraya jirkaaga nafaqooyinka muhiimka ah oo ay ugu horreyso cunto qaadasho isku dheelitiran. Tani waxaa loola jeedaa inaad isku daydo inaad ku darto cuntooyinkaada kala duwan kuwa nafaqo leh si looga helo tamarta, sida rootiga ama bariiska oo ku siinaya tamar waqti dheer soconaysa. Dooro ilaha kala duwan ee laga helo borotiinka sida ukunta, hilibka, kalluunka ama looska oo dhammaantood kaa caawinaya inaad dareento dheragsanaan buuxda, awoodna aad ugu yeelato soonka maalintii. Waxaa kaloo muhiim ah in afurkaaga aan laga waayin dufanka caafimaadka leh sida kuwa ku jira saliidda saytuunka, afakaadhada ama looska oo jirka ka taageeraya inuu helo nafaqooyin muhiim ah. Fruitiska iyo vegetablesku waa doorasho fiican iyaduna, maadaama ay bixinayaan fitamiino iyo macdano muhiim ah oo kala duwan oo kaa caawinaya inaad si caafimaad leh u afurto. Biyo cabista badan maaha wax inteena badan aan xoogga saarno, balse waa mid lagama maarmaan ah. Xitaa inta aad afurayso waxaa loo baahan yahay inaad cabto biyo badan oo aan sokor lahayn si aad u ilaaliso qoyaanka jirkaaga. Ka fogow sokorta badan, cuntooyinka sokorta badan leh, cuntooyinka macmacaanku ku badan yahay ama sharaabka sokorta leh waxay sababi karaan heerarka sare ee sokorta dhiigga, taasoo kadib kugu keeni karta dhibaatooyin caafimaad. Xilliga afurka waa muhiim in la xakameeyo qadarka cuntada laga qaadanayo, isla markaana aad ka fogaato inaad cunto badan.